Qofka cadhooda xilli Ramadaan ah weliba ka cadhooda waxyaabaha aan ahayn waxyaabaha uu Alle ka cadhoodo ee malaayacniga ah, waxa uu lumiyaa waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin tamarta jidhkiisa, ajarkiisa iyo garaadkiisa. Ilaahay qofka Muslimka ah bisha barakaysan ee Ramadaan waxa uga dhigay inay noqoto bisha tababarka si uu qofka Muslimka ahi u noqdo mid ka fiican sidii uu ahaa Ramadaanta ka hor. Haddii ayna tani ruboobin oo qofka Muslimka ahi aanu ka fiicnaan sidii uu ahaa Ramadaanta ka hor, waxay Ramadaantu dhammaataa. Waxaa run ah inuu qofkaasi gaadhin ujeeddadii Ramadaanta loo jideeyey. Xikmadda ku jirta bisha Ramadaan lama xaqiijin karo ilaa ay Ramadaantu dhex gasho qalbiyadeenna oo ay xorayso mooyaane, isla markaana ay u jilciso qalbiyadeenna cabsida daacadda iyo bisha Ramadaan waxa ay jeclaysiisaa dadka badinta camalada khayrka leh. Xikmadda ku jirta arrintanina waa in dadka Muslimiinta ah la dareensiiyo macaanka iimaanka, cabsida Ilaahay, inay gaadhaan raalli ahaansho Ilaahay iyo inuu noqdo qofku mid ka wanaagsan sidii uu ahaa Ramadaanta ka hor. Sidaas awgeed albaabada cadaabta waa la xidhaa, kuwa jannada waa la furaa, ajarka waa la lamalaabaa, shayddaankana waa la xidhxidhaa. Waxaas oo dhanna waxaa loo sameeyey in qofka Muslimka ahi uu qumanaado. Sidoo kale waxay bishani qofka ku dhiirigelisaa ka tegista xumaanta iyo dhaqannada liita sida cadhada. Nebiguna waa kii lahaa, haddii adiga oo sooman qof dagaal kugu xisho ama ku caayo, waxa aad ku dhahdaa waan soomanahay. Xadiiska rasuulkii Alle ka sugnaaday waxa uu ka mid yahay mucjisooyinka cilmiga ah ee ku jira diinteenna. Marka qofku xanaaqo, waxaa labanlaab u korkaca dheecaanka jidhka ku jira oo la dhaho underline. Kadibna dheecaankaasi waxa uu gubaa kaydka qofka ee ku kaydsan beerka ee la dhaho glycogen, kaasoo u beddela glucose si uu jidhku u helo tamarta uu baahan yahay inta uu sooman yahay. Sidaas daraaddeed, marka uu qofku xanaaqo waxa dhammaada kaydkaas, waxaana uu arkaa qofkii soomanaa maalintaasi isagoo xilli horeba dareemaya tamar darro baahsan, awooddiisiina waxa uu ku dhammeeyey meel aan faa'iido lahayn. Underline-na marka uu kor u kaco waxa kale oo uu keenaa inay ku badato kaadidu, taas oo daalisa kelyaha qofka sooban kuna keenta harraad ka badan kii caadiga ahaa. Daraasad lagu sameeyey jaamacadda Harvard oo ay ka qaybgaleen 1305 qof oo ah dadka cadhada badan socotayna 7 sannadood ayaa lagu caddeeyey in dadka cadhada badani ay ka wadna istaag badan yihiin kuwa cadhada yar. Baadhitaanno ay reer galbeedku sameeyeen ayaa ay ku caddeeyeen in cadhada oo la qarsado, saamaxaadda iyo cafintu ay ku wanaagsan tahay caafimaadka qofka. Aragtidan ay reer galbeedku imika ku waafaqeen Islaamka ayaa ah aragti ka soo horjeeday aragtidii hore ee odhanaysay in qofka cadhaysani uu cadhadiisa kula duldhaco qofkii u cadhaysnaa si uu u nafiso. Sannado badan oo la waday daraasado ayaa la doonay in lagaga jawaabo su'aal muhiim ah oo odhanaysa suurtagal ma tahay in la baro sidii uu qofku u xakamayn lahaa cadhadiisa. Aqoonyahanada sida daran arrintan ugu dib jiray waxaa ka mid ah nin la yidhaahdo Dr. Freidenberg oo cilmi baadhis uu sameeyey ku faafiyey wargeysyada Maraykanka, ku xaqiijiyey markii tababarro kala duwan lagu sameeyey dad badan si ay cadhadooda u maamulaan, ay 50% hoos u dhacday heerka xanuunka laabjeexanka, taasoo ka dhigan in jawaabta su'aashu tahay haa. Diinteennu waxa ay dhigmooyin badan ku sheegtay faa'iidada ay leedahay in la iska dhaafo cadhada. Qur-aanku waxa uu ammaanay dadka xakameeya cadhadooda, waxauna sheegay inay tahay marxalad ka mid ah marxaladaha ixsaanka iyo samafalka oo ah heerarka ugu sarreeya heerarka iimaanka. Nebiguna waa kii xadiis ku lahaa, aqoontu waa barasho, dulqaadkuna waa isbarid iyo ku tababarasho. Qofka samaha raadiyana waa la siinayaa, ka xumaha ka dheeraadana waa laga dheeraynayaa. Ilaahay waxa uu soonka dhex dhigay faa'iido jidheed oo qofka u wanaagsan. Waxaad dareemaysaa in soonku yahay hab camali ah oo la dhaqangeliyo oo Rabbi ugu talagalay xakamaynta cadhada iyo la qabsiga wanaagyada. Marka qofku uu cadhoodo isagoo sooman, waxa uu dareemayaa daal, gaajo, harraad iyo awood yari badan, taasoo qofka barta inuu ka fogaado waxyaabaha kasta oo keenaya inuu cadhoodo. Marka ay bisha Ramadaan dhammaato, waxay u dhammaataa isagoo ku tababaran sida loo xakameeyo waxyaabaha keenaya inuu cadhoodo. Marka uu qofku ku celceliyo isbarista samirka iyo dulqaadka, waxa uu gaadhayaa heer ay caadooyinkiisa ka mid noqdaan
isaga oo aan dhaadadayna cadhada ka durqo. Soonka dhabta ahina waxa uu ka mug weyn yahay in cabista iyo cunista la iska daayo, ee xubnuhuna waxa ay ka doonayaan waxa Ilaahay cadho geliya in laga joojo. Gaajada iyo haraadkana waxa ka daran sidii uu qofku ula qabin lahaa xubnihiisa soominta. Waana sababta uu macallinkii basharka ee suubanaheeni Maxamed u leeyahay badanaa inta qof sooban oo aan soonkiisaas ku lahayn waxaan ka ahayn gaajo iyo haraad ka badan. Guntii iyo gabagabadii muuqaalkeennana waxaynu ku soo gunaanadaynaa Ramadaan looguma talagelin inay ku hagaajiso oo ay ku toosiso inta lagu guda jiro bisha Ramadaan, se waa inay ku beddesho dhexdeeda iyo gadaasheedaba. Intaas ayaynu ku gabagabaynaynaa muuqaalkeennan, ee haddii aanad weli nagu soo biirin, nagu soo biir, muuqaalka like saar, waxaanan idiin rajaynayaa soonqaad wanaagsan.